Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan ummadda muslimiinta meel walba joogtiin iyo gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan idin leenahay ciid wanaagsan waxaan rajaynaynaa ciidan ciidiisa kale inaan ku gaarno bashbashi barwaaqo waxaan aad ugu faraxsanahay ciida runtii waxaan jeclahay inaan la qayb qaadano dhammaanteen anagoo ah bahda Blue Star waxaan caawa aan runtii aan jeclaysanay in maadaama ciid lagu dhawaaqay aan idinkana nala ciidaan waxaan idin leenahay nala ciida asxaabtana waxay idin leeyihiin ciid mubaarak nala ciida محمد إبراهيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أن دعاء سلامة وكاقادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومد الإسلام كمال الجوكتين وحائد الله يهي إيد وناكسن وعاكلو أن لا يهي إيد وناكسن صومالي ذا مالو الجوكتو إيد وناكسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنيقو محمد ديكونا ما شاء الله عاوة وحال وقواقي عيدي هذا فرحسناها شعورتي لما لسو كوبي كرو وحا ملينا هل هيس نقول فندونا وملينا مرنا waa runtii directorka marna waa fanaan waxyaabo badan marna waa comediist ama mutajirist حاج العق asiga ma igeeres حاج العق la dhikan marka wariyay qaaligan waa jooga waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel walba ay adduunka ka joogaan ciid mubaarak caawa فرحسنahay maadaama ramadaankii oo naga soo dhamaaday insha Allah taala ramadaankiisa ilaahay khayr ha noo gaarsiyo waxaan idin leeyahay one love Soomaaliya hagaag ciid wanaagsan waa ciid wanaagsan ayaan leeyahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee muslimiinta meel walba aad ku nooshihiin iyo sidaad u ciideen baan waxaan leenahay ciidu ha idin wacnaato waxaan xasuustaa mid kamid ah asxaabta wariyaashaasna Muqdisho jooga wuxuu yiri hadda koor ciida waa xalwii buskud laakiin aniga hilib iyo bariis waa ciideedan laakiin codka waa marka xoogaa bil dhana la soomnaay waxa waa marka saaka wali hilibka lama cunin u fahanti soo marka ciida marka waxaan rajaynaynaa in aan ku wada ciidno nabad iyo baraaro iyo bashbashi barwaaqo iyo dalkiyo nabada insha Allah aan rajaynaynaa inaan ciidan ciideeda kala hadii Ilaahay oo nagu siimo inaanu idin imaan doono akhyaarta Blue Star ku xiran waxaan idin ogeysiinaynaa in ay soo socdaan howlo fara badan waxyaalo fara badan waxaan idin leeyahay balan qaadnay iyo filimka waan qalbiyaan isoogeyn aniga wax ilmaha moogta ilaa waxa waaye gabadhiya laga qaatay marka حاج لعق عاو يكفي marka inta fursad aan ku haysto waa gaadi karaa ma fahanti okay filimka waxay ugu tataawinayna mise waa ka soconayna ni horta filimka waxay ugu tataawinayna filimka soo socdo ee qalbiyaan isoogeyn cidii daawad doonto runtii waxaan is dhigi karaa kii hore aad u daawateen uu ka darnaan doonaa oo runtii waxyaalo fara badan ayaa ku jiro حاج lacag markii hore asiga ayaa dhulka lagu jiiday laakiin markaan qof kale dhulka lagu jiidi doona marka ma ka sii hor dhacaya marka baasha marka waa sii macaanaanaysa laakiin waxay idin rajaynaa inaad in fariimihiina gaagaaban qoraaladiina dhaadheer farxadiina aad nala wadaagtaan mar labaad iyo mar saddexaad maqleen waxa waa filimkan sameystaankiisa maxaa yeelay waxaan rabnay in ma sha Allah feedback badan helnay ina waxyaabo oo hore loo arkin inaan ku darno watahay maadaama directorka aad tahay Blue Star filimantana qayb laxaal aad ka qaadatay muxuu ugu dugnaan karaa isleedahay filimkan qalbiyaan isogeen waliba qaybtiisa ugu xiisaha badan dadka Facebook ay nagu wareeriyeen oo telefoonada ay nagu wareeriyeen ayna weydiiyeen maxaad leedahay oo isbedel niyo horta Soomaali filmin badan la sameeyay marka laakiin filimkan oo hadda qalbiyaan isogeen waa film feedback yadiisa oo ma sha Allah actorka waa kana waa ila fadhiyaa dadka qaar xataa asiga ay soo direen marka aniga filimkan waxaan rabaa in oo ka duwanaado midkii Soomaalida hore u dhigeysay in oo macnaa ina camera lees ka hor istaago oo wixii rabo lees ka sheego inuu ka duwanaado oo macnaa waqti fiican gas dadka hadda waxay leeyihiin daacada waxa lagu ayaan axsan waraq loo soo qoray arkay waxa la dhahay warbaxaa idiga dadkii waxay u barteen filim oo 2 daqiiqo dhag hor la soo toor laakiin kan waxa waa daacada waxa laga laayay war gabadha dharbaaxa ku dhufo marka daacada u gudbayna maqnaha insha Allah taala filimka waa filim wuxuu noqon doonaa aad jeclaan doontiin mar walbana feedback-yadooda aan ku shaqeynaa waxaa la yiri sharxi la tumaaya sheeka ka dambeysay daacad u bixi qashinka ayuu ku tuuray maxaa xiga markaan oo la tuuri doona ama la soo dhaweyn doona hayda
waa mahadsantahay arrintaasi dib ayaan ugu soo laaban doonaa ama sida uu sheegay waaye directorka dharbaaxshadu didan yuu yiri maadaama ciid ay tahay asxaabta fanaankana uu nala fadhiyo fanaanka ayaan rabaa inaan ugu tuuro si uu asagana oo wax ka dhaho alla maanta ayaanta iyo ciida wanaagsan ilaahayna siiyey isagaa ku awaale alla maanta ayaanta iyo ciida wanaagsan waxaan idin leeyahay ciid mubaarak Soomaali waa jecel waan idin jecelnahay asxaabteena nagu xiran saas iyo Blue Star iyo filimkii qaybtiis labaad qalbiyaan is ogeyn actorkii weynaa ana soo xiri doona barnaamijkeena aad idin jecelnahay mar walbana laakiin dadku niyo inay isweydiiyaan dhici karto ragii macnaha gabdha actoradii ku jiray actrishaashi caawa ma jirto camal maxaa ka dhihi lahayn actrishaashi maxaa ku maqan yihiin sheegay sidoo sheega waaye caawa howlo kale ku maqan yihiin macnaha filimka ayaa jiro oo la duubayo sida oo ay ka dhawaajiyeen qeybaha waxa ku maqan Cilaansaar marka dib ay ayagan idinkaga soo duubi doonaan waxaan idin leenahay sidaas iyo waan idin jecelnahay mac salaama